السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام عن waxaa ka hadli doonaa dhiig ka imaado maalmo kadib kolkii xajigeeda la kulanto haweeneyda waxaa sababay calaamadaha looga hortagi karo dhiiggaas haddii aad isku aragtid uur ma iska baari kartaa. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhiiggaas wuxuu kaga duwan yahay dhiigga caadiga ah kan dhiciskaba. Intaba caawa ayaan ka hadli doonaa hadduu eebano ogolaado. Dhiigga haweeneyda isku aragtay 6 ilaa 12 cisho kadib kolkii xajigeeda la kulanto waxaa loo yaqaanaa implantation bleeding. waxaana keenay ku dhigitaan ay ku dhagayeen xabada aabaha iyo ugxan-sidaha ugxanta gidaarada minka. Xabada aabaha iyo ugxanta waxay ku kulmaan tube loo yaqaano fallopian tube oo u dhaxeeya minka iyo ugxan-sidaha. Markay kulmaan kadib waxay isla soo raacayaan wayna u soo deganayaan minka si meeshii ay u helaan nafaqo iyo waxyaabihii ay u baahnayeen. ku dhigitaan ay ku dhagayeen gidaarada minka ayaa waxaa sababayo inuu dilaacaan xidid yaryar ee gidaarada marayeen. Dan kadib waxa yimaado dhiig ayaa yimaado. Dhiiggaas ma ahan mid dhibaateynayo xaaladaada caafimaad. Waa dhiig midabkiisu yahay brown oo khafiif ah. Inta badan wuxuu socdaa saacado ilaa 3 cisho ka badan. Dhiiggaas waa calaamadaha ugu horeeya ee dhiigga. Sidoo kale waxaa la socon karo ama ay isku arki kartaa calaamado kale oo badan oo sheegayo inuu ur jiro. Calaamadahaas waxaa ka mid ah dhiigga caadada oo la waayo ama uu istaago, barar ama xanuun iyo danqasho ku yimaada naasaha, daal ama dabardari, dibiryo, lalabo subaxdii hore, madax xanuun, calool fadhi, heerkulka jirka oo bata ama jirka qofka olola. Sidoo kale haweeneydu waxay isku arki kartaa xanuun aad u yar oo qeybaha hoose uu ka badan yahay xanuunada aad dareemaysid xilliga caadada oo uu ku yar yahay xilliga caadada waxaad dareemaysaa xanuun aad u badan. maxaa yeelay murqihii minka ayaa isku dhagayo si ay dhiigga ay dibadda uga soo saaraan. Balse uu ka duwan yahay xanuunada oo uu ka yar yahay. maxay ku kala duwan yihiin dhiigga loo yaqaano implantation bleeding oo haweeneydu isku aragto 6 ilaa 12 cisho kadib kolkii xajigeeda la kulanto iyo dhiigga caadada. laakiinse inta badan dumarku way isku qaldaan oo way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin midabka iyo qadarta ay ku kala duwan yihiin iyo intuu dhiig uu soconayo. Dhiigga loo yaqaan implantation bleeding waa dhiig midabkiisu yahay brown oo khafiif ah. Inta badan wuxuu socdaa saacado ilaa 3 cisho wax ka badan ayuu socdaa. Inta badan wuxuu yimaadaa 6 ilaa 12 cisho kadib kolkii xajigeeda la kulanto. Balse dhiigga caadada wuu ka badan yahay wuxuu socdaa 4 ilaa 7 cisho. Sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin xanuunka qaybta hoose ee caloosha ama qabatinka hoose qaybta hoose ee caloosha. Dhiigga implantation bleeding markuu ku joogo waxaad dareemaysaa xanuun aad u yar, balse dhiigga caadada wuxuu leeyahay xanuun aad u badan ayuu leeyahay. maadaama ay isku imaanayaan murqaha minka iyo si ay dhiig iyo wasaqdii meesha uga saaraan. laakiinse mar walba waxaa wanaagsan dhiig haddii aad isku aragto inaad meel ku qorato si aad dhakhtarkaaga aad ula socodsiiso. waxaa jiro xaalado kale oo uu dhiigga keeni karo haweeneyda bilaha hore ee uurka. waxaa kamid ah isbedelada hormoonada galmada, noocyada kala duwan ee qashinka. Sidoo kale waxaa keeni karo ilmaha ku abuurma meelaha ka baxsan minka sida tubooyinka iyo fallopian tube loo yaqaano ama ectopic pregnancy. waxaa kale keena dilanka. Uur ma iska baari kartaa haddii aad isku aragtid dhiigga implantation? haa, waad iska baari kartaa adigoo xaafadaada jooga. haddii aad ka heshid jawaab aad isku halleyn kartid waa inaad aadaa xarumaha caafimaadka si loo